maayirka magaalada Burco iyo barsaab ku-xigeenka gobolka Togdheer ayaa maanta si rasmi ah xilka u kala wareejiyay gudoomiyaashii hore maxkamadaha rafcaanka gobolka iyo degmada ee gobolka Togdheer iyo gudoomiyaasha cusub ee la soo magacaabay. Gudoomiyaashii hore maxkamadaha rafcaanka iyo gobolka halkaasi ka hadlay ayaa soo bandhigay waxyaabihii iyo guulihii ay gaadheen intii ay xilka hayeen, waxaana ay sheegeen baahiyo garsoore ku gadaaman qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Togdheer. waayo garsoorahu isagu waa shaqaynaya laakiin meesha laga daawanaya waa bulshada dhexdeeda. haddaad meeshan ku ogeydeen cadaalad darro aad ku ogeydeen imika ba cadaalad ugu soo hagaaga. waxa aan ballan qaadaynaa in aan ku maamuli doono oo shaqadeeda u gudan doono si xalkisnimo ah aanu populationka dacwaduhu ay ka yaaliin maxkamadda sinaan iyo cadaalad inaan ugu gar qaadno. waxa igu waajiba inaan ka dhex bixin xaydaanka cadaaladda. maxamed cumar geelle oo kamid ah gudida cadaaladda dalka oo halkaasi ka hadlay ayaa kula dardaarmay garsoorayaasha cusub ee la soo magacaabay inay xukunkooda sal uga dhigaan shariicada islaamka. waa inaad mar walba shariicada ku taagnaato, waayo akhriya duumadaas ku nabadgelaysa. shariicada islaamka hal la ilaaliyo iyada aad dhaweynaysa dacwada oo aad u fududeynaysa, waayo wixiiba waxa weeyaan qofkii soo dacwado waxa la shaahidaa ka yimiina waa laba marakeen haddii kale uu dhaaranaya dacwadii oo dhamaatay. waxaan toddoba cisho gabagabaan soo gudbinaya halkan haddana sii maray waxa soo adeerada u jiro shaahidaa ka keen labada marag haddaad soo weydiday yimiino isaga lagu dhaaranaya waana la kala baxaya. maayirka magaalada Burco barsaab ku-xigeenka gobolka Togdheer iyo taliyaha qaybta bilayska gobolka Togdheer oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay muhiimadda garsoorka iyo cadaaladda, waxaana ay la dardaarmeen mas'uuliyiintan cusub ee la soo magacaabay maxkamadaha gobolka Togdheer. maxkamadan sidana kuwa laga hadli maayo dadka ahlul xal wal aqd la yiraahdo aqoonta Ilaahay siiyay baa laga hadlaya. 10 kamid iyo suukin marxaati furin oo oranin waxba ma bedelin kuwi la keenay waxba ma bedelin yaan la oran. maxkamadda oo dhan waxaan leeyahay meel kale oo loo dhaqaaqaya ma jirtee horweynta dareertay haraaga jooji xanteen way baantay. anaga waxaan ku xamanayaa mitir dawladda hoose iyo wadada tuurta ku sida, laakiin idinka sharciga baa idinku xamanaya. waxaanu gobol ahaan idinku mahadnaqaynaa muddadii aynu wada shaqaynaynay sidii wanaagsanayd ee gobolkan uga soo shaqayseen. madaxa cusub ee maxkamadaha iminka jooga ama gobol ha ahaato ama degmo ha ahaato ama rafaan ha ahaatana ee ku cusub halkanna waxaanu leenahay ilaahay xilkaa ballaadhan ha idinku asturo. cidda si toos ah wada shaqeeyaan baanu ahay maxkamadaha haddaan bilayska waanu mahad celinaynaa madaxdii hore iyagana geeyo madaxda loo soo bedelayna oo soo isku shaandhayntan ay wasaaradda cadaaladdu ku sameysay garsoorayaasha dalka ayaa waxa si cad uga dhex muuqda da'yarta kuwaas oo la filayo inay dib u soo nooleeyaan rajada cadaaladda iyo garsoorka ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. maxamed xuseen ismaaciil mooto, shabakadda caalamiga ee Burco online, magaalada Burco.